khasaa'is fara badan bay maalinkan leeyahay khasaa'istiisa waxa kamida nabigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri waxa ku jirta waqti yar oo adoonkii muslim ah oo ilaahay wax weydiista khayr ah ilaahay uu ka aqbalay saacatul ijaaba saacad rabbi tabaaraka wa taala waxaad weydiisatoon xaraan ahayn aan macsiyo iyo dambi ahayn khayr ama mubaahaadka ah allah hadaad weydiisato uu ka aqbalay xadiidka Abu Hurayra ayaa nabigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maalinka jumcada waxa ku jira waqti ama saacad uusan waafaqaynin muslim taagan oo tukanaya allana khayr weydiisanaya illa ilaahi waasiinaya wuxuu yiri waana waqti khafiif ah oo yar waqti dheer ma aha waa waqti yar saacadaasina waa ku jirta maalinta jumcada waxay xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam laga wariyay ku kala bedelan tahay meesha ay kaga jirto saacadaasi maalinta jumcada xadiis baa jira muslim soo saaray oo tilmaamaya in ay ku jirto marka imaamku uu minbarka ku istaago laga bilaabo ilaa salaada la tukado oo laga baxo waqtigaas ay ku jirta xadiis baa tilmaamaya xadiidkaas sixadiisa culimada qaar baa ka hadlayo waa la haystaa xadiis isaga ka badan baa waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa in ay tahay casarka kadib khaasatan maalinta jumcada saacada ugu dambaysiya waqtiga ugu dambeeya ee qorrax dhaca ku dhow waxa tilmaamaya xadiidka Abu Hurayra markuu xadiidka sheegay oo saacadaasi in la iska aqbalayo cidii Ilaahay wax weydiisata uu tilmaamay ayaa wuxuu yiri waxaan la kulmay saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Salaam markaasaan u sheegay buu xadiidkii waxaan u sheegay nabigu inuu sheegay saacad jumcada kamida oo ruuxii taagan oo tukanayo muslim ah allana wax weydiista laga aqbalayo markaasuu Abdullah ibn Salaam wuxuu yiri aniga waxaan garanayaa saacadaasi meesha ay kaga jirto maalinta jumcada waa teebul wuxuu yiri waa saacada ugu dambaysta maalinta jumcada Abu Hurayra iskaal baa ku dhasho wuxuu yiri seebay ku noqon kartaa saacadaas adigu laba isukay waafaj xadiidka nabigu uu ku sheegay wuxuu sheegay inuu tukanayo ruuxu axaadiis kale oo nabiga ka suganna waxay diidan tahay saacada qorraxdu sii dhacayso ama ay isbedesho in la tukadaba nabigu waa diido waa nahiyay xadiidkanina wuxuu leeyahay ruux taagan oo tukanaya ee saysu waafaqaysaa Abdullah ibn Salaam waa bushi bixiyay oo wuxuu ku yiri soo nabigu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam ruuxii fadhiista meel asagoo salaada sugaya salaad buu ku jira soo nabigu ma dhihin haabu de waa taas laazim ah inuu salaad u taagan yahay ee hadduu intuu meesha fadhiisto salaadii maghribka sugayo salaad buu ku jira Abu Hurayra warkaasi meel la kama marine inuu ogolaaday bay ka muuqataa oo ninka la yiraahdo Abdullah ibn Salaam warkiisa inuu aqbalay isla waqtiga waxa kale oo ku soo aroortay xadiidka Anas Tirmidhi baa soo saaray iyo qeyrkii waana xadiid xasan isla waqtiga waxa kale oo ku soo arooray xadiidka Jaabir ibn Abdullah Abu Daawud iyo qeyrkii baa soo saaray waa xadiid saxiix ahadiistu waxay u badan tahay sida Imam Ahmad uu leeyahay Ali rahmatullah waxay u badan tahay inay tahay saacada ugu dambaysa maalinta jumcada saacadaasina waa ku jirtaa oo cidii ka faa'iideysanaysa jaanis weyn waay laakiin waa saacad dadka intooda badan ay mashquulsan yihiin khayraadka waa weyna inta badan waxayba ku hagaagaanba xilli ibni aadamku mashquulsan yahay xilligaas cidda intay soo fadhiisato masaajid timaado salaad sugaysa oo ilaahay baryaysaay ma badna jaaniskaasi dad badan waaba moog yihiinba waxa ilaahay aad ka rabto tabaaraka wa tacaala xilliyada iriduhu furan yihiin baa la raadsadaa